Read akhri the passage sheekada about ku saabsan the road accident shilka wadada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Read the passage akhri sheekada about ku saabsan the road accident shilka wadada. Fatima, a 12-year-old girl oo ah gabar 12 jir ah at Hillside Primary School dhigata dugsiga hoose ee Hillside la yiraahdo in Masaka ku yaalo Masaka, had an aunt waxa ay ku lahayd habaryar ama eedo working ka shaqeyso in Kampala ka shaqeynayso. During inta lagu guda jiray the first term holidays fasaxii termka koowaad ahaa, Fatima God waxa ay heshay an opportunity fursad to come ee ku timaado to Kampala. She came waxay u timid to spend inay la qaadato the holidays fasaxa with her aunt eedadeeda who lives in taasoo ku nool Nitinda meesha la yiraahdo near u dhow the city caasimada ama magaalada. Did you enjoy the journey? Muku soo raaxaysatay safarkii? Fatima, her aunt asked eedadeed ayaa weydiisay. Yes aunt, ha eedo, I liked it, waan ka helay ama jeclaaday. Uncle Ali, Abti Ali, was driving fast. Waxa uu waday gaariga si dheerayso, especially qaasatan ama gaar ahaan from marka laga soo kacay ama ka soo tagnay Masaka to Kampala ilaa ka imaanini. Did you travel with someone else? Micid kale la safarteen? Yes auntie, ha eedo. We helped, waxaynu caawinay a man nin who was involved in an accident kaasoo shil galay on the main road wadada weyn shilku galay as he was trying markuu isku dayayay to cross inuu gooyo. When he reached markuu tagay ama soo gaaray the junction isgoyska near u dhowaa the roundabout meesha roundaboutiga going asagoo u socday to Nitiana meesha la yiraahdo. A speeding car gaari xawaaro ku socdo lost control oo controlkiiba lumiyay and hit kuna dhacay ama ku dhuftay the man ninkii at the crossroads meesha intersectionka wadada isgoysyada ah. Thanks. Alif la kordhabe, alif loos dhabe, alif la gode.